waxaana wanaagsan daawadayaal halkani waa Al-Xurriya News daliya dibad wararka xilligan aan idinka hayno waxa ugu waaweyn fashilka filla Soomaaliya kadib qorqor oo la heshiiyay mucaaradka nabad iyo nolol soona saaray qodobo dhowr ah oo ay ku heshiiyeen ciidankii farmaajo ka keenay Eritrea oo xaalad cabsi geliyay gobolka Gaza iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda maamulka Jubbaland wasaaradda amniga federaalka oo war ka soo saartay isla markaana digniin ka dirtay arrinta ku saabsan shariifka guriga lagu weeraray Somaliland oo looga digay in ficiltanka dawladda darteeda halis ay u gelisay shacabka ku nool deegaanadeeda kadib tallaabooyin ay qaaday wasiir Beelo oo si wata ilaalashada booskiisa xilli uu ku dhawaaqay arrimo ku saabsan xaaladda guud ee dalka Soomaaliya Puntland oo ka laabatay go'aan ka cadhaysiiyay culimada iyo waxgaradka deegaanadeeda isla markaana ku dhawaaqday tallaabooyin cusub akhbaaradka dibadda daawadayaal aan idin hayno waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay ee daraasadaha laga soo ururiyay caabuqa corona ee faraha baan ku haya dunida oo la soo saaray iyo dalal dhowr ah oo ay ku soo kordheen kiisas cusub ayaan idin haynaa qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawan doontaa saaxiibayaal soo dhawaada haddii ay ku tahay markii koobaad ee channelkan fadlan subscribe inoo saar ayna ku bilownay saaxiibayaal hordhaca baahinta warkeena sidii aad ku daawanayseen madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa bilaabay inuu heshiis la galo xildhibaanada iyo dhammaan dadka diidan maamulkiisa ilo waradyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in heshiis muhiim ah ay galeen madaxweyne Qorqor iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo diidanaa doorashadii Dhuusamareeb arrintan ayaa u muuqata mid Axmed Qorqor uu ku dhawarjinaya madaxda filla Soomaaliya oo ka dambeeyay soo bixitaankiisa doorashada magaalada Dhuusamareeb waxayna tani ka dhigaysaa in Qorqor uu la heshiiyay mucaaradkii dawladda federaalka Soomaaliya raadsanaysay waxyaabaha dhinacyadu ay isku afgarteen oo lagu soo koobay ilaa 3 qodob ayaa kala ahaa in xildhibaanada mucaaradka ah ay ka qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo dhawaan la filayaan lagu qabto Dhuusamareeb in dhinacyadu ka wada shaqeeyaan danaha guud ee Galmudug ayna xildhibaanada ka qayb qaataan dib u heshiisiinta siyaasadda gobolka iyo hoggaanka iyo qodobka u dambeeyo ah in madaxweyne Qorqor uu xildhibaanada u ballan qaaday inuu kala shaqeyn doono sidii dib ay ugu soo laaban lahaayeen baarlamaanka Soomaaliya oo 6 bil kadib waqtigiisu dhamaanaya lana filayo in dib loogu soo doorto deegaanada Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa sidoo kale heshiis la galay madaxweynihii ka horeeyay ee Xaaf waxaana la filayaa inuu xaliyo tabashada hoggaanka Ahlusunna sida ay xaqiijiyeen ilo muhiim ah mas'uuliyiin badan oo daneeya arrimaha Galmudug iyo guud ahaan Soomaaliya ayaa dhaqdhaqaaqyada Qorqor ku tilmaamay mid isu keeni kara Galmudug meeshana ka saari dib u dhaca ku saabsan dhinaca gobolka iyadoo shalay ay xusin mudan tahay in madaxweynihii hore ee dawladii kumeel gaadhka ahayd ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo xubno kale ay ka hadleen xaaladda Galmudug isla markaana ay tilmaameen in Galmudug hadda wada wanaagsan ay ku soo noqonayso Axmed Ducaale Gelle Xaaf hogaamiyahan wali wareejin xilka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug fadhigana ka dhigtay magaalada Galkacyo oo uu la kulmay gudoomiyaha gudida qabanqaabada caleemasaarka xafladda madaxweynaha maamulka Galmudug Yuusuf Garaad Cumar ayaa waxa uu sheegay in qaar ka mid ah qodobadii uu kala hadlay Xaaf ay isku aqbaleen isla markaana la filayo inuu soo gaadho magaalada Dhuusamareeb ilaa hadda ma jiro warar hordhaca oo dhanka Xaaf ka imaanaya kuwaasi oo uu kaga hadlayo inay dhab tahay inuu soo gaadhayo magaalada iyo sidoo kale inaysan dhab ahayn si kastaba ha ahaatee Galmudug 9 bil waxay wajahaysaa maamul xumo soo wajahaysa iyadoona khilaafyo badan ay soo kala dhex galayeen mas'uuliyiinta dhanka siyaasadda ee gacanta ku soo qabtay hoggaankeeda kadib markii maalmihii la soo dhaafay cabsi badan ay ka jirtay gobolka Gaza ayaa waxa aad loo hadal hayaa ciidamada Itoobiyan oo ka soo gudbay xadka Soomaaliya iyo Itoobiya isla markaana soo gaadhay gobolka Gaza warar hordhac oo laga helay ciidanka soo gaadhay Gaza ayaa sheegaya in ciidankan ay u badan yihiin ciidan Soomaaliya oo dhawaan tababar soo qaatay wararku waxay intaasi ku darayaan in ciidankan ay yihiin dhalinyaro sanadkii hore loo qaaday dalka Eritrea isla markaana hadda soo dhameystay tababarkii waxaana lagu soo dhex diray askar Itoobiyan sababta ayaana lagu sheegay in ciidankaasi ay wataan hub culus oo mamnuuc ay ka tahay in dawladda Soomaaliya loogu deeqo ama ay keensata maadaama wali uu saaran yahay cunaqabataynta ku saabsan dhinaca hubka ciidamada ayaa qaarkood Gaza ku soo bandhigay hubka ay dalka la soo galeen oo ah liidka diyaaradaha raaca sidoo kale xogta ayaa tilmaamaysa in ciidankan iyo kuwa Itoobiya ay u ruqaansan doonaan dhanka gobolka Jubbada Dhexe wali dawladda Soomaaliya kama aysan hadlin ciidanka ajnabiga ah ee dalka soo galay iyo wararka sheegayo in ciidamo Soomaali ay qayb ka yihiin ciidankaasi ka soo gudbay xuduudda Itoobiya ee la leedahay gobolka Gaza ee koonfurta Soomaaliya si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa loo arkaa mid dawladda federaalka Soomaaliya ay kaga hortagayso qorshe dhagareed la sheegay in Axmed Madoobe uu maleegayo xubnaha taageersan dawladda federaalka Soomaaliya waxaana wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya gobolka Gaza ay tilmaamayaan in xaaladdu ay tahay xilligan mid cabsi ah
warkani oo mid ka soo baxay wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in waxba kama jiraan ay yihiin eedeymaha ay madasha xisbiyada qaran ku sheegeen qaar kamid ah hay'adaha amnigu inay abaabuleen weerar ka dhan ah madaxweynihii hore ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed. qoraalka ka soo baxay wasaaradda amniga ayaa lagu sheegay in madaxweynayaashii hore ee dalka amnigooda ay sugaan ciidamada ilaalada madaxtooyada isla markaana aysan suuragal ahayn in weerar uu uga yimaado hay'adaha amniga. wasaaraddu waxay cadeynaysaa in madaxweynaha haatan xilka haya iyo labadii ka horeysay ay dhammaantood amnigooda sugaan askar ka wada tirsan ciidanka ilaalada madaxtooyada qaranka, sidaas darteedna aysan suuragal ahayn weerarka la faafinaya ayaa lagu yidhi qoraalka. war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in labadii madaxweyne ee ka horeysay madaxweynaha ay haatan dalka kasoo samata bixiyeen xaalada adag isla markaana ay mudan yihiin tixgelin gaara. ugu dambeyntii warqadan ayaa lagu sheegay in dowladda federaalku ay ka digayso warar been abuur ah oo sida lagu sheegay qoraalka ay faafiyeen shakhsiyaad ku doonaya inay gaadhaan dana siyaasadeed. dowladda federaalku waxa ay ka digaysaa ficilada xun iyo wararka been abuurka ee shakhsiyaad la garanayo ku doonayaan inay dana siyaasadeed uga macaashaan. wararka aan sal iyo raadkoona lahayn ayaa lagu soo gabagabeeyay war-saxaafadeedkan oo kasoo baxay wasaaradda amniga isla markaana jawaab u ahaa midkii madasha xisbiyada siyaasadeed ee ka jira dalku ay soo saareen shalay galabnimadii. hagaag saaxiibayaal, weli baahinta warkeena ayaa daawanaysan goor dhow deegaanada Puntland iyo wararka ka jira ayaan aadinaa, balse markan Somaliland. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid injineer Faysal Cali Waraabe ayaa ka digay khatarta ka dhalan karta duulimaadyada ay diyaaradda Ethiopia Airlines ku tagto magaalada Hargeysa maadaama ay ka timaado dalal uu cudurkaasi farabaan ku hayo. gudoomiye Faysal ayaa xukuumadda wuxuu ugu baaqay inaysan la fogaanin ficiltanka siyaasadeed ee kala dhexeeya federaalka Soomaaliya, midaasi oo horseeday xukuumadda ku adkaysatay in garoonkeedu uu furan yahay walow xayiraad ay ku soo rogeen dalalka qaar. Faysal ayaa ka dhawaatiyay in badqabka bulshada uu ka horeeyay xiisada siyaasadeed isla markaana gebi ahaanba la joojiyay duulimaadyada diyaaradaha Ethiopia ay ku timaado magaalada Hargeysa. gudoomiyaha ayaa ka digay in afooyinka Somaliland uga yimaado dalka Ethiopia ugu darsamo cudurka halista ee coronavirus, kaasi oo uu sheegay in uu noqon karo mid horseedi kara baaba'ada deegaanada Somaliland. waxa uu intaasi sii raaciyay ficilku inuusan sii eryin dadka isla markaana uu soo xambaarin cudurka. waxaanu jecelnahay in arrintani maadaama ay tahay aafo qaran laga hortago mucaarad, maxaafid iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada. xukuumadda Somaliland uu hogaamiye madaxweyne Biixi ayaa iyadu weli ku sii adkeysanaysa in sideedii hore ay u socdaan duulimaadyada ka imaanaya dalka Ethiopia, midaasi oo halis caafimaad ku ah bulshadeeda. Somaliland ayaa u aragtay duulimaadyada Ethiopian Airlines guul ay ka gaadhay dowladda federaalka maadaama ay hareer martay go'aanadii ay ku joojisay duulimaadyada caalamiga ah iyadoo ku doodaysa inay tahay dalka madax bannaan Soomaaliya, balse dowladda federaalka ayaa ku guuldareysatay in Somaliland ay ka celiso ka degitaanka diyaaradda Ethiopian Airlines. wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in bangiga horumarinta Afrika uu cafiyay deyntii uu ku lahaa Soomaaliya kadib dadaal dheer oo ay sameysay dowladdu dhinaca hagaajinta maamulka iyo maaliyadda dhaqaalaha. warbixinta AFDB ayaa waxay cadeynaysaa isbedelka muuqda ee laga sameeyay hagaajinta hanaanka maaliyadda iyo dhaqaalaha dalka, ayuu tilmaamay wasiir Beyle. wasiir Beyle ayaa xusay in dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay inay sii wado dadaalka ay ugu jirto isbedelka horumarineed ee dhanka maaliyadda dalka. si kastaba horay bangiga adduunka ayaa waxa uu Soomaaliya uga cafiyay deyntii uu ku lahaa iyadoo ay jiraan dalal kale oo ballan qaaday inay ka cafinayaan Soomaaliya deynta ay ku leeyihiin. waxaana arrintan ugu soo beegmaya iyadoo dhawaan uu Beyle la hadlay dadka danaha gaarka ah kala arrimaha maaliyadda oo uu sheegay inay ka qustaan in Soomaaliya laga cafin waayo deymaha lagu leeyahay. wasiirka cadaaladda dowlad goboleedka Puntland Cawil Sheekh Xamuud oo kulan gaar ah la qaatay culimada, muwaadiniinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxa uu wada tashi kala sameeyay go'aanka ay ku xidhan masaajidda iyo sidoo kale dugsiyada lagu barto Quraanka. wasiir Cawil waxa uu sheegay in dowlad goboleedka Puntland ay khafiifisay amarada ay dib u eegis ku sameysay kadib talooyinka yimid culimada iyo macallimiinta. warka soo baxay wasaaradda cadaaladda Puntland ayaa lagu sheegay in dhinacyadii kulmay isku raacay inaan la xidhin masaajidda balse laga shaqeeyo nadaafadda goobahaasi. si gaarana waxaa la iskugu raacay in la xidho musqulaha, meelaha lagu weysaystay iyo goobaha looga shaki qabo inay ka dhalan karto ilma aragtida si looga hortago faafidda caabuqa. amar maalin ka hor ka soo baxay xukuumadda Puntland waxaa lagu fasaxay goobaha waxbarashada waxaana lagu joojiyay isu imaatinka dadka, halka masaajidda iyo dugsiyada Quraanka Kariimka lagu bartana amar lagu xidhay. halka daawadeel wararkaasi aad kala socotaan waa Al-Xorriya News imikana caalamka. weli waxaa farabaan dunida ku haya caabuqa corona oo galabtay nolosha dad badan, waxa uuna u muuqdaa mid
ilaa gaadhay guud ahaan qaaradaha dalka Mareykanka, Asia, Latin America, Africa iyo sidoo kale dalalka Yurub iyo Farabaan ku haya. Dalka dimuqraadiyadda ah Congo waxa uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah si loo xakameeyo caabuqan. Magaalada New York waxa ay xudun u noqotay cudurka corona, waana magaalada Mareykanka ku taal ee laga helay kiisaska ugu badan, halka Liibiya saraakiishaasi ay ku dhawaaqeen helitaanka caabuqa kiiskiisa ugu horeeyay. dalka Talyaaniga waxaa sii kordhay tirada dhimashada cusub, balse hoos dhac ayaa laga dareemayaa kiisaska cudurkani, waxaana caabuqa corona sababay in la baajiyo ciyaaro muhiim oo iskugu jira kuwa fudud iyo sidoo kale ciyaaraha kubadda cagta. waxaa sidoo kale dib loo dhigay tartanka kubadda cagta ee dalalka Yurub, iyadoo ciyaarihii Ingiriiska iyo Scotland iyagana la joojiyay ilaa bisha soo socotay Abriil. Si kastaba, dunida ayaa si weyn u hadal haysa caabuqa COVID-19 ama coronavirus, waxa uuna saameyn ba'an ku yeeshay dhaqaalaha caalamka, iyadoo guud ahaan dal kasta oo ka mid ah dunidu uu la tacaalayo sidii uu wax uga qaban lahaa cudurka coronavirus ama caabuqa loo yaqaan COVID-19. guud ahaan daawadayaal, war wixii xilligan dalka iyo daafaha caalamka naga soo gaadhay oo aad ka daawanaysaan halkani oo ah barteena Al Xurriya waa inta kulan dambe oo xiiso la saaxiibayaal intaan kulmi doono.